السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaasi toos ah inooga daawanayso waa channelka Macalin Muuse official channel. anigu magacaygu waa Macalin Muuse. haddii ay tahay markii kugu horeysay booqashada channelka ama aragtideeda, fadlan waxaan kaa codsanayaa si xushmad leh inaad subscribe ka saarato, like-tana aad nagu dhiirigelisaa wixii fikrad iyo ra'yi ahne commentiga nagula wadaagtaa. intaasi kadib waxaan bilaabi doonaa insha allahu tacaala barnaamij noo noqon doono taxane oo aan wiigii markay uga tahay maalin ama labo haddii ay noo suura gasho aan soo gelin doono insha allahu tacaala. barnaamijkaas oo noqon doono ama ka bixi doono isla bartan channelkan Macalin Muuse official channel ayaa waxa uu yahay barnaamij caafimaad. sideen isaga daweyn karaa isha, sixirka iyo waxa loo yaqaano waalida uu qofku waalo jinka ama shaytaanka walciyaadu billaah. maxaanse ka akhrisan karaa? maxaa sababaha keeni kara? maxay yihiin qofka inuu isla hadlo, qofka inuu isdhexyaaco, qofka inuu mataqaanaye uu waasho maxaa keeni karo? qofka in lagu taabtaa il maxaa keeni karaa? insha allahu tacaala waxaad kaga bogan doontaan barnaamijyadeenan taxanaha ah ee aanu u yeeli doono baartiyo 1 iyo 2 iyo 3 ilaa iyo heerka inala gaarto ayaynu insha allahu tacaala akhrin doonaa. waxaynu ka akhrin doonaa kitaab إن شاء الله تعالى كتاب قالي أو مجلس اللي يراهدو العلاج القرآني والطبي. السدوين اللي سكدوية علاج أهان قرآنك يطبي أهان وطبي يقولون عمين وحويان ودكتور أهان من الصريع الجني من الصرع الجني له وحويان ولقدينك وجينك ولقدا إنسيجا وحلو لجدا إنسيجا مركا وجينك تابتوا والايا مركا intuu ka waalaya wuxuu ka waalayaa meel walba, maskaxiyan, jasadiyan, dhinac walba. marka insha allahu tacaala kuwii ku camal falo allah naga dhigo dhammaanteena. ahmiyadda ay leedahay qofka inuu iska daweeya ama uu isdaweeyaa cilaaj qur'aani ah uu isku daweeyaane ilaahi subxaanahu watacaala markuu bacdu sifaati shifa uu ka hadlayay ama bacdu masaadir shifa waxa uu yidhi wauxaa rabuka ila annaxli an ittakhidii min aljibaali buyuutan wa min ashajari wa mima yacrishuun ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. انت مهم نوعا شنذا على الشيذا وحاكا صبحايو عسل ملب نعيدتك للدون فمنهم الأحمر والأصفر والأسود ومذو وجذود وعقار وجالها نوع لو يقانو نوع أبيض كأ ملب عدها ملب جذود كأ ملب مذوجة انت بوائك صوب حيان شن ذا أمر إلهي سبحانه وتعالى أينك صوب حيان تاسنا معناه ذماهن إن هدي أن ملب كشن ذا أن استعماله أن عذر البكبكسونا بل من بعض الأمراض وحويا إله سبحانه وتعالى ما أوصل بهن شفاء لكل الناس مدهن أما لكل الناس ذاتك أودن يسنف والبو عذر أي وحا أويه الداو ما أوصل بهن إله سبحانه وتعالى بل إله وحا أويري إن شفاء للناس ذاتك أي وحا أويه شفاء يدو أي أويه ولكل داء في كل حال موصن لهن داو عذر والب حالد والب أيون دوينا يا موصن لهن بل وحو يري هدي وحاني مركان أيهين عذر ذا قاركود مر هدي أي شيء أو دويو أو لو بوكسونايو وحال هذا شفاء والدو مر بهدي قار كمد وحيابها لو دو إليهين وحويان كل يس إنه دوي هاي آية لقى عبرة قاضنا يعني. إذن waxaa loo baahan yahay marka muqadamadii aan weli ku jirnaayay waxaa loo baahan yahay oo ilaahay subxaanahu watacaala in jirada iyo caafimaadka labadiisaba in ay xaggiisa ka ahaatay. wuxuu leeyahay nabi ibraahim calayhi salaam isagoo ilaahay subxaanahu watacaala calaa lisaani ibraahim ku hadlayo waidaa maridtu fahuwa yashfiin. marka aan xanuunsado ilaahay waa kan i bogsiinayo, waa kan i caafinayo.
fiiri maridtu marka uu leeyahay maridtu ta'daasi isaga ayaa isku mukhaatib ah oo waidaa maridtu marka aan jirado oo aan xanuunsado aniga aan xanuunsado maasaa xanuunka Ibraahim waa maya bal xanuunka ilaaha keeno caafimaadka ilaaha keeno marka waa ta'diib aadaab waay waidaa maridtu markaan aniga oo Ibraahim xanuunsado fahuwa ilaahi waa kan yashfiini caafinayo caafimaadka ilaahi u tiiriyay jiradana asaa isku tiiriyay mujida waa ta'adub waay laakiin sida kale jirada iyo caafimaadka labadaba ilaahay xaqiisa ayay ka ahaadeen subhanahu wa ta'ala qofku waa inuu yaqiinsan yahay marka xanuunkan haayo qadar rabbi subhanahu wa ta'ala inuu ugu dhacay caafimaadkana xaqiisa buu ahaaday ilaahay subhanahu wa ta'ala kun fayakun buu qofka ku caafimaadaya tayib midda koowaad ee muhiimka iyadana ay tahay in la ogaado waxay tahay as-sabru 'ala al-marad qofka inuu ku sabraa oo uu ku dulqaataa jirada xanuunkan qofkan ku dhacay وحنون قدر إله أو قدر سبحانه وتعالى وإنه كدل قادن كرا للربان إله سبحانه وتعالى وحى أكبر يا الدومدي صبرك حلق حنون سنجهين حلق امتحانك أو محجري ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ضدك وحنكو امتحامنا وحب سئة باهي مالك حولها وكنا قصينينا متقنا مرها waxaad laakiin u bishaareysaa oo aad ugu bishaareysaa dadka saabiriinta ah alladina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wa kuwa dhahayo markay musiibo ku dhacdo ilaahu adaana leh xagaagan u laabaneenaaye qoladaas u bishaari ayuu leeyahay ilaahi subhanahu wa ta'ala marka waxaad ogaataa marka xanuunkan ama maradkan kugu dhacay iyo imtixaankan kugu dhacay inuu yahay ibtilo iyo imtixaan ilaahay xaqiisa ka yimid nabi ayub ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ibtiyay oo imtixaanay maalkiisu ku imtixaanay caruurtiisu ku imtixaanay ehelkii oo xaaskiisa jirkiisii ilaa uu mataqaanay jiradii ay la dheeraatay waxaa la sheegaa 18 sano inuu mataqaana xanuunsanaa nabigaasi kariimka ah ayaa la sheegaa markaasuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu xaqiisa u orday duco iyo tadarruc ayuuna la yimid nabi ayub alayhi salam waay markaasuu waxa uu ku baryay bi asmaa'ihi alhusna wa sifatihi alulya si uu uga feeda waxa ku sugan oo jira iyo bala ah markaasuu ilaahay isagoo nooga sheekeenay wuxuu yiri wa ayuba idnada rabbahu anni masani ad-durr wa anta arhamur rahimin fastajabna له فهذا سوى فاء التعقيب mar alla la markuu baryay nabi ayub oo yiri ilaahu waxa itaabtay dhibaata itaabatay adigaana inta naxariisato ugu naxariis badan intaas markuu yiri fastajabna lahu markiiba waynu ka jawaabnay markiiba jawaabtiya samada ka timid fooqa 7 samaawatin ilaahi wuxuu yiri waynu ka ajiibnay ayuu yiri fakashafna ma bihi min durr wax alla la wixii dib aha oo heystay ayaynu ka feednay waateenahu ahlahu ehelkiisii ayaynu siinay iyo wamidlahum macahum inti in la mid ah laab waynu u laabnay ayuu leeyahay rahmatan min indina maxaynu saas u yeelnay rahmatan min indina naxariis agtanada ka ahaatay ayuu leeyahay iyo wadikra lil aabidiin inta cibaadada badan ee aabidiinta ah ayaa waxay u tahay xus iyo waano ayay u tahay waan meeshaas marka waxaan ka ogaanay in imtixaan adduunkan imtixaan uu yahay xanuunyadiisuna imtixaan ay yihiin oo joogta oo socoto saas darteeda la budda waxa qofka inuu xanuunsanayo una xanuunkaasina hadii uu ahayn midka uu ku geeriyoonaay caafimaad uu ku dambeenayo intaan marka waxay barnaamijkan intaan wuxuu hordhac u ahaa barnaamijyo aan soo wadno insha Allah taala oo aan kaga hadli doono jinka maxaa lagu bixiyaa sababta keeni karto maxay tahay jinka bani aadamka insiga magala oo xaqiiqo miya ma inuu ka dhax hadlo xaqiiqa barnaamijyadaasi ayuu horrac u yahay barnaamijkan insha Allah taala ee isla socod wacan 10 daqiiqo ayaynu ku soo koobi doonaa insha Allah taala inta aynu baartiga labaad aynu ku kulmi doonaa insha Allah taala waa macallin Muuse oo idin kaga tagayo salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa